مواد السلامي وكبت حاج waxaa iskala fariintan walaalkay maxamed bk fariin ayaa noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan maaragtay u dhageystay fariintaadii walaalkay waxa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan horka fanka bixaysay arrin waxa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoos isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahaayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sid caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK gaarsiiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda public aan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo aftigay Axmed Beef marka arrintu waxay tahay inuu jiro mashruuc waxaan loo sheegay mashruuc inuu jiro sidii lagu ciribtiri lahaa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed mashruucaas waa mashruuc lacaga lagu soo qaatay wadaadda niman Soomaaliya wadaadda ah ka shaqeeya niman wadaaddo Soomaaliya ka shaqeeya la yiri fanaaniintana qofka ugu horeeyo oo loo soo adeegsado oo dhinacooda laga soo maro oo mashruuca wax ka og sida la igu sheego waa inagu beenan dhodooba ma jeceli qofka ugu horeeyo ee mashruuca madaxda ka ah oo wadaadada ku sii xiran inuu yahay abtiga Axmed Beef alla ii sheegay adigana lagugu tuujiyay oo sida lagugu qaaday waxa waliba la igu daray fanaankii inta mashruuca loo sheego uu ka gadmo waxa lagu xujeynayaa inuu fanaaniin kale soo tashkiiliyo marka muhiimadu waxay tahay marka aan ka hadlayno mashruucan maadaama uu yahay fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed in lagu ciribtiro oo lacag lagu soo qaatay waxaan rabaa inaan marka aan marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BK inaad tiraahdo dar Ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaan ay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadoo lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysa adoon dhibtoono lahaysini ka soo baxay inaad tiraahay eedarto saas inaad tiraahay saxsanayd marka walaalkayo haddii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxa la yiri maxaa la dhihi jiray waada iyo hebelo maxaa kulansiiyay waa maamaadaas waaweynka waaye isax cid taqaana isaxda maxaad ugu xaa kulmiyay hebel iyo walba hebel maxaa kulmiyay BK mashruuca inuu jiro waxa anigu uga sii shakiyay oo aan ku sii aaminay xoogaay asa tashkiilintaada saa'id waaye ama Beef abroon soo dahdahayba oo dhowr sano ceelasha biyaha ku xaraysnaa oo wax baraayayba oo maanta labado xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad quraan aan sheegi karin aad maanta waxa ku celceliyay fanki xoog buu ahaay soo baxay ilaa shaqo laga rabaa waa lagu soo xujeeyay saan dareemayo mashruuca beginning waa idin sheegay mashruuca qaadashadiisa waxay tahay dad lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin aan qarsato maaha anagoo kula ogad noo sheegi lahayd lacaga jirto soo yaa leena dhiileed markaas ugu lama yaabeen moqt marka walaalkay BK yaaba heli karaba tawbadkeen fanki iska daa aad umadaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska heshay israacado aad dambi kugu filan baadii oo basi kala xataa u ahaa waayay dambi oo qiil kasta loo raadso fanka oo xataa muusiga la iska dhaafo leeyahay muusiguna waa iska qurxinaysa la iska daayo dadka la isu keeno dibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan aad dambi noogu filayd lacagteena xaaraan kaba dhigi kartaba walaalo marka adoo BK guri ka dhistay anigu fanka guri kama dhisan raasamaal kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baasaya qaadashadeeda waaye saar cali jar wuxuu dhigi jiray lacag waa qaadasho codkuna waa anige yaa lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas adoo mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg umadana u sheeg ya tawbadkan
with the basso cidda diidaysa anigu inay jirto uma malaynayaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan waa wada qaxan qax horay ka qaadahayn horay ka dafahayn